عرض كي حدقها جيسكا MMC مرسل موسى عمر النقيرو أكثر دعانك خطرة عبدي سينمو صعبك xidigihii baryahan bidhaantooda la waayaa bartaan ku kulmay bandhigay dhigayaan iyo bidhaantii hadalkaan idiin soo bayaamiya intaynan u gudagalo waxaan ka codsanayaa inaad barnaamijka like saarto Unbelievable. He's my blood. Whatever. He is not your blood. He's my You blood. are dreaming. Now what Rihanna is about. Whatever. kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada Somali Dream oo halkan idinkugu soo gudbinayna dib boorka iskaga jafeen kooxdii xidigaha geeska oo heese iyo barnaamij aad u ballaaran dib u soo duubay tan iyo markii ay kala firdhadeen kooxda xidigaha geeska arrinkoodu waxa uu iska noqday wagash oo ma uuna saxnayn xaalkooda hase yeeshee maqaawiirtii kooxdii xidigaha geeska oo hore uga hayaamay ayaa dib u soo laba kacleeyay waxaa la yiri gadaalka gaarku goobdumis waaye gadaalka gaar waxba meesha uma qabanayaan baa la yiri qof walbaaba wixii lagu asaasay unbaa asal u ah kooxda xidigaha geeska hore waxaa mar isaga tagay fanaanada Yurub Genyo oo dib u soo laabatay sidoo kale waxaa isaga tagay fanaanada kale ee Qadra Silmo oo ayadu barnaamij dhankaba soo duubtay oo ay eedan u soo jeedisay kooxda xidiga laba kamid ah oo Xasan Dhuxul Laab Saalax oo ahay abwaankii heesaha sameyn jiray sidoo kalena musicianka oo furin la ahay eed labadaasi u soo jeedisay sidoo kale Xasan Dhuxul Laab Saalax waxa horay uga eed sheegtay fanaanka Nimcaan Hilaac oo yiri kooxda xidigaha waxayba noqotay goob qabiyaaladeed oo halkaas isaguna dhaliil uga soo jeedisay dib soo xaalku u noqdaba Yurub Genyo iyo Qadra soo laabay Qadra waa la xaliyay arrinkaas siday u egtahay markii uu gudoomiyihii dhamaay kooxda uu u wareegay dhanka siyaasadda labiyo sideetanka mudane golaha yimid baa dooranaya waxaa laga dhur sugayaa uun marka uu madaxweynuhu soo saaro bisha gudaheega xusuustii Cabdulqaadir Mayow Boonis fakfakley waad fududaatay ma fatuuray wadataa haddaanu inta in yaroo nasashaa weeyaani waxaanu gudaha u galaynaa kooxda xidigaha oo mid loogu yeerayo aanun halkan idinkugu soo gudbin doono waxaana ku jira Qadra Silmo Mursal Muuse maqaawiir bariye kala baaday waxaa igu soo dhacday heestii ahayd Busayl iyo Xiise raagay heesta Qadra ay ku luqan jirteen weeyaan war idinku daalinina waa kuwan xidigaha geeska fanaanka weyn ee Soomaali guud ahaantii laga yaqaano Cabdinuur Allaale iyo aktarada kooxda xidigaha geeska mid kamid ah Yurub Maxamed Cabdi ayaa barnaamijka inoo furi doona ku soo dhawaada Yurub iyo Cabdinuur Asma Xasan Aadan Saban sacabka Thank you walaal Asma soo dhawow walaal sanad wacano wanaagsan walaalkay way walaal adaan qaadaya jawaabaysa maxaa la yiraahdaa dadkii igu dhiirinayay jacaylka Allah ya ciise marna waxay u jawaabtaa dadkii u haystay xaaladan adag inaan laga baxayn Allahu waxaan taaganahay daraaraha hawsha badan nolosha ma dhamaanayaan kuwii igu dhihi jiro ilkii sooniga ka baxay ya saban
2022 iyo asma saban erayada waxaa iskale cabdiraxiin heelo sidoo kale laxanka walaalkay khaalid maxamed xasan baale muusiga waxaa tumaya Haaruun Ibraahim codkuna dee waa miskiin waxaad naga sugtaanba waa codkii macaanaa asma saban waxaa barbarkayga taagan oo sanadka cusub inagala qayb qaadanaysa mid ka mid ah stariska ugu caansan astaamaha kooxda xidigaha geeska ifraax axmed ciise hargeysa ifraax sanad wacan oo wanaagsan waxaad inoo haysaa sanadka waxaan noo hayaa hees jacayl oo wada jacayl erayada ismaaciil yuusuf jaheeye laxanku waa khaalid miisi ciil tiro furinle axmed weli ibraahim maxamuud furinle way sanad cusub oo wanaagsan waxaad sugtaanba waa ifraax hargeysa waa kooxda xidigaha geeska sanadka cusub 2022 waxaan idinku yeedhayaa fanaanka codka macaan codka talmoon axmed maxamed bakaal ciro maxamed axmed bakaal ciro sanad wacano wanaagsan caawa magacaygii baa isdaba marisay aabbahay badan igu yeedhay sanad wacano wanaagsan heestaan sidoo waxaa sameeyey xasan daahir ismaaciil weersame laxanka iyo erayadaba muusiguna waa ayuub ugbaad maxamed cabdi aragsan shaxshaxda kooxda haye ugbaad sanad wacano wanaagsan walaalo maxaad inoo wadaa sanadka heesta la yidhaahdo waa isaami noloshii way erayadii laxanka iyo muusiga intaba erayadii laxanku waa daaha cabdigaas way istaadku wasalaaminaa xaajiga Ilyas Idris Caynaan الله يعزك سند ifraax tolmoon baa garabkayga taagan oo ka mid ah fanaaniinta ugu codka tolmoon lagayga Soomaalida intiina badan aad jeceshiin ifraax waxay noo wadaa hees jacayl ah oo codkeedii hibada Ilaahay u siiyay nagu qaadi doonto erayadeeda waxa qoray oo halabuuray abwaanka caanka Cabdi Ismaaciil Siciid Biso laxanka waxa ku ralanay ustaadul ustaadiin Cabdinaasir Macallin Ciidiid Ilaahay cimriga iyo caafimaadkaba haw barakaya muusigii Ayuub Haaruun oo caawa inteena badan ina daadihinaya ifraax أنوغو يدو أكتر دعانكا خطرة عبدي سينمو صعبك خطرة سند وعنو وناكسن سند وعنو وناكسن دمان ومد إسلامكا إريدا وحيسكالي حيستان صوضو قري دول لحكا وحيسكالي نيكان ياك فرديا الفنان حمد روبلي يموسيقي أيوب هارون إن بدن فنان تهميسين ويدينيسين هوستا كحرقيسين عرضكي حدقها جيسكا MMC مرسل موسى عمر استاذ الاستاذين سند عصبو وناكسن ولالكيو تسوان وعنا وناكسن قد ما تنتهي إنا ومدى دي تاغير رياش هذه محل لي دعاو سند وعنا وناكسن بان ليه دمان ومدى سوماليات يو ومدى دوينها دافيه دو كسوغن اوردن او حسيدا هيس وحا اريدي لحنك سميه عبدالرزاق حامد عيدي جيلاني وانا ادو سلامي يوم لي سند وعنا وناكسن وحن سقنا بواي ويسقنا وحوي احمد ولي ابراهيم محمود فرنلي